خلق فوق الكرام والبرايا وراه رب صل على حبيب محمد وعلى الآل من هو لست أنا لوصله فظلامي حائلنا يحل منهم ضياء رب صل على حبيب محمد وعلى الآل من هجروني ولست أنكر أني لم أزل مذنبا وكل خطأ رب صل على حبيب محمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ومنة للمؤمنين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ما معناها موضوع هذا لا يدورتي علماء يقول مقعابين وحان هو باين أنا هي متك هو أحقر سنة مقول ليتا مو علمير لعل لقيا وموضوعيان خلاف كجرين وجره لكن waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin wadaadku waa qoladii aalbeedkeeda ma sharaftayde balo xogaa sheekhana sheekh Muhidiin aad hadalkii oo qasiidadu aqriyay ayaa waxa ku jirtay ya nabi allah hadda ka hor baan midba waxaan ku yar hadalay qolada naga soo horjeeda asxaabtanada wuxuu yiri rasuulku waa badintay maxaa loogu yeedhaa horta adigu yeedhaan markaas waxaan inay waan ogahay oo rasuulku waa wafaaday anigu dhintay ma oran hayo laakiin waxa jira rasuulkaad waa nool yahay waxaan in ma qirsan tahay ambiyadu inay nool yihiin ma aaminsani buul waxaan in ka waran xadiiska Bukhari iyo Muslimka ma aad raacsan tahay haa waa raacsanahay buul hadii Bukhari iyo Muslimka ku talaabanay ambiyadu nool yihiin hadduu nool yahay xataa qabrigiisu joogaa buu yaani kama sokay marka waxaan idhi ka waran hadda qabriga Nabi Maxamed nagama dheero waxa laga yaabaa dhowr kun oo kiiloomitir inuu noo jiro laakiin meel boqolaal dhowr milyan oo kiiloomitir jirta hadduu daqiiqada isaga gooshay ka waran maanay wuxuu idhi taasi ma dhici karto waa mustaxiil waxaan idhi ma la socotaa habeenkii Laylatul Isra wal Mi'raj rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam in laga soo dheelmiyay Maka oo markuu soo socday uu soo maray nabiyullaahi Muuse oo hadda ka hor dhintay asaga hortii oo qabrigiisa ku tukanay nin dhintay oo markaa nooleen oo caadami ma tukada waa ma jawaabto haddana isla markii nabi Muuse wuxuu ugu tagay asagoo jooga Baytul Qudus halkaas nabi Muuse ambiyadii kale uu ku tukiyay waxaan idhi samada lixaad ayuu ugu tagay muxuu ahaa nabiyullaahi Muuse isla daqiiqado isla sakamo maxaa yeelay riwaayinka qaar waxay sheegaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asagoon gogashi uu ka tagay aan qaboobina sida uu kulushahay ruuxu markuu gogash ku jifo dhinaca meesha ku hay way kululaanaysaa hadduu xogaa daqiiqada ka sii maqnaadana way qaboobaysaa asagoo gogashi uu ka tagay aan muxuu kululaanin oo xaaskii la jiifay ayna dareemin ayuu haddana soo laabtay marka waxaan idhi samada adoo meesha qoladan ay leeyihiin baalkan ay daxgacmeedka diraan halkii minad wuxuu soconayaa intaas oo milyan oo mayl buu goynaya samada u sokaysana mayna gaarina ogow samada lixaad marka imisa ku inta ma bilyan way ka tagtaa trillion miles bay noqonaysaa marka ayada laakiin haddii aan xadiis qiyaaskeeda raacno waxay xadiisu noo sheegaysaa samadan hadda samaa dunyada Ilaahay noogu sokaysa in loo socon lahaa 500 oo sano ayada jurmiga xooga ay leedahayna 500 6 sano markii min kun lagu dhufto 600 oo muxuu 6 kun oo sano ayaa qiyaas ahaan loo socon lahaa halka haddii intuu tagay nabi Muuse uu kaga tagay Baytul Qudus uu meesha ugu tagay ka waran marka halka ka soo cadaatay ambiyadii kale inay adduunka kala gooshayaan si kama ay isaga gooshayaan war waxaan idhawayahay ambiyadii kale hadda u ogashay nabi Maxamed waxa qartood meesha uu xabistay
lacala laga yaabo kitaabo badan baa xaggan yaalo aan wato laga yaabo inay yiraahdaan war wadaadada kitaabo ma wadana wadaadka kitaabadu wata maxay yihiin waxaan malayn mid waxa weeye waa fuli oo la badan waan oran jiray waa yar yar Soomaha qofka fuliga burir badan buu qaataa waxaan kuma taro laakiin qofka geesay ilaahay gacantu iska aamina kitaabta aan wato waxaan u wataa ma aha daliil inaan soo qaatay laakiin xujo kale ayaan soo qaatay qaar waxa ku jira in ninka la yiraahdo Maxamed Cabdiwahaab ee hadda nimankan aan isayno saaxiibadana ay u nisba sheegtaan ay haystaan aqoontiisa ama dariiqadiisa in ay mawludi dhigaan xaflad ilaan xaflad iyo munaasab waa isku mid nooc doonaa noqoto mawlid ha lagu magacaabo ama siira ha lagu magacaabo ama dacwo ha lagu magacaabo xaflad waa xaflad munaasab waa munaasab waxa ku cad maalintii qoladii muxuu ahaa khilaafada islaamka la riday ee khaasatan 8 sano ka hor qoladii ashraafta laga takhalusay bay halka haysatay iyo hadda on joogno waqtigan in 7 bari munaasaba loo dhigo hawaya xaq feero ka dilacay lama oran jirin muftigood ibn al-Baaz baa qoray warka asaga waliba cadayn haya in xafladda nabi maxamed ay bidciyo khuraafaad tahay munaasabada kalena ilaahay loogu dhawaanayo qaar waa noocaas waana markay aan insha Allah waxaan jeclahay 10 daqiiqo kale ay dhimaantay culimadu inay ii digaan si oo muxuu ahaa aan kaamirada u soo hordhigo qaar waxa yaala oo wata waxay tahay ninka sheekul islaam ay u yaqaanaan nimankan saaxiibadana inuu daliishanayo ilaahay inuu samada joogo waxa lagu garanhayaa nabi ciisa wuxuu ku yiri xirtiisi khaaska xawaariinta loo oran jiray hadaad Soomaalida qolada kristanka hada wadaadadooda inay yiraahdaan dadka dambigaaga la dhaafaya qofka haduu lacag badan bixiyo dambigiisa la dhaafaa lacagta lagu dhaafaya ka faqiirkana orod baa la oranaya kolkaad halka dhaaf weeyda dambigaaga la dhaafaya qaar biyo ku sayrsayraan waxay yiraahdaan dambiga lagu dhaafaya marka wuxuu yiri buu leeyahay nabi ciise hadii dadka dambigooda aad dhaaftaan aabihiina samada jooga dambigiina dhaafay wuxuu daliishanayaa inuu ilaahay aaba yahay macnaha asoo wuxuu marka laga yaabo inuu lahaa kor u daliisho laakiin aafada kalaamku ku jirta muusan iska fiirin يعني ومجلد كشنات فتاوى ابن تيمية وصدن يتضمن مجلد كشنات صفحة اللحب أفر بقولي اللحب يكون الله وحنا لقد دودي كروي قار وحنا وحويتها هي شيخ هذيك وهابي هذا اللي تقول تيمية الأورنجري على بكتاب ولا هي هالكو هي مدوح ولا هي نما كلا يا أشاعرة وهذا وأهل الضلال أو بحيان وأهل السنة والجماعة اللي يرادوا وأفرت مذهب الإسلام قارنا توصلوا نسبة شكتان قار رئيس عقيدة بيهين إن النسبة ذا كل كمان تعانوا كمسلمين تكونوا ولا قياسه إن يهين بقول كساعشان يشان لكن أسوي حوله إحساسيات كالقاضي أنا ما قرسني كتاب كلو حكوا شيء هي أسلام مركب إن أهل الضلال يهين أو قلا دين تكبح ذا يهين إذا مركب هذوش ساعشان يشان وقلاضي أشاعرين يهين أسوي قري أما ده تطبع محاق قاضي محوها خبراء قاضي أسوي خبير هين أو جغرافي يقانا وضدك يقانا وصنعين أنا قصدي كلام نقول بجرا وحلا ورجال المسلمين سيدات يشان وأشاعري وحلا مذا شان يطبعا كلام وحلا يرادا ومحوها الشيعة بل شان تكلم الشيعة كده مرك على الأقل إذا مرك أنا كاس وحوق قرايا زيرو إنه ينن وح إسلام لا ينسى ندون كنا عليه هذا أنا سجر عنه يعني أركتيس مرك إخواني إخوتي في الله هرت مولد والله دقة حفلتنا والله دقة عالم لكن مولدي ذاك لقدسن أنا وحبابا كما قاري كرنو إلهي توقير كنا محمد وسيء وينينتي يعني وحير أون ساوسي بدنين أو وح إربط بالله قليي وح كسير أيان كشجنا قلنا حفلات بيدقانو أيقونا وي حقيران ويا سنة ضربا أنا وتنا عندنا أيقونا توك كلا وحي دقان أي كو إهانين هيانا كو حقير هيانا كو عاي هيان ومولد كلا كاس ومولد كلابات مولد صدحات باجرو كان هذا الشيء محل عبد الله تدور بري لودكو أنا قوون دي وانا لو قلان ليه لكن تدور بري ما يشكو عضايق وعضين هيان نقطة كوباد